intaan ifka ku noolaa khayaanada maanta nagula sameeyana weligay layma khayaanin anigana qofna uma khayaanin laakiin macna ma leh aaba indhahaaga ilinaa ka socoto maxaa dhacay maxaan kuu sheega wiilkaygu markii aan suuqatay oo aan damcay inaan alaabta gado jeebka markaan gacanta geliyey lacagtiiba way ka maqantaa waa layga jeebsiiyey aaba ii sheeg sidee lagaaga jeebsiibay adiga lama socotid silac iyo dhibaatada aan soo maray lacagtan baabuuran u dhaqay dhagaxan u jibay qoraxda intuu taagan anigana dhididkayga iyo dhacaankayga iga baxay adigana waxaad ileedahay lacagta waa layga jeebsiibay aaba adiga lama socotid lacagta helitaankeeda dhibka iyo dhibaatada la soo maro midaas kaama yeelaayo aaba aniga waxaan u baahanahay lacagta aan soo shaqeey aan u soo dhididay aabo ila hadal aniga lacagteeda u baahanahay isii kontonkayga rubi aan u soo dhididay ayaan u baahanahay aabo isii waa dadaashay wiilkayga waa dadaashay waajibkaaga wiilnimana waad gudatay waryaa mala socotaa aabbahaaga inuu wax kasta kuu samayn jir aad malaayiin qamaar ku soo ciyaartay mala socotaa aabbahaaga inuu kuu gaday hotel adiga aad ku qasabtay konton xuno adiga aad soo shaqaysay ayaad aabbahaaga kalarkiisu qabanaysaa ma xishoonaysid miyaa waryaa lacagtii hore aad ugu soo ciyaari jirtay ninkaan aad soo shaqeeyey dhididkiisa ilaaheed waryaa sidaasi ma la socotaa waryaa aabbahaaga hadda noloshaan xun oo ku jiro madaxaaga ayuu u galay nolol wanaagsan ayuu ku jiray magaalada dhanna ninkan waa laga kasay nin lacag leh ayuu ahaa oo magaalada dhan laga kasaayo caan ku ah laakiin ninkii waxan ku xiriiray faqrnimo ma hore waryaa aabbaha intaas dhibaato aad u geysat waryaa kulama hadlin konton rubi xuno aad soo shaqaysay ee aabbahaaga kalarka aad ugu qabatay maanta ma xishoonaysa waryaa bas iga dheh adeer bas iga dheh waa ku baryaa bas iga dheh aniga nin ciyaar suuq waan ahaan jiray nin xun ayaan ahaan jiray laakiin maanta heer waxaan gaaray aabbahay kalarkiisa aan ku dhago midaasna miigu habboon tahay aniga casi waalidan ayaan noqday aabbo aniga hay cafinin aabbo adeerkayga waa runtiisa ninka shalay ahaa taajirka magaalada maanta aniga ayaa ka dhigay faqiir aniga ka dhigay konton rubi dartiis maan aniga u gubtay aabbo waa ku baryaa cafi waa ku baryaa wiilkaaga nahay macna ma leh cafi aabbo ku baryaa aabbo adigaan kugu dhaartay anigoon lacagtaada hal kugu soo celin waxay u balanaa inaan si raaxale ku seexanin aabbo maya wiilkay maya dadkaas waa dad khatara wiilkayga ha u tegin iska daa wiilkay ha aadin meeshaas maya aabbo maanta karfanteeda ayaa madax ku wataa cid i hor istaagi kartana ma jirto waa inaanu aado kuwaas aan lacagteenan ka soo celiya dadkaas wiilkayga fikirsaag martida dhawaa joogaan aaw shaaluu soo ard ma aadahay aniga dadkaas waxaa ku dhahdaa aniga aras ma rabo vikii qof aan aynimo guursanaayo ordu sheeg adeer shaaluu arosku way diidan tahay isdhaqaajisa iska jirto yaa awood kuu siiye inaa halkaa timaadid aniga karfanteeda madax ku wataa nindayaal waxaan kuu sheegayaa adigoon lacagteedaysin inaan halkan ka tegayn bar urayaa ayuu dhimanin waryaa ama bajuuqle kan usaaba jarawane waryaa ani awoodaan u lahaaday oo adi beesada aan kaaga soo daldashto adna awood u yaala waryaa ani beesada ina iga daldalatid waayahay maya Vicky